بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة لكم سدوات برامج محاك عصب عراق وضعكتا سوق اليبسيغا ayaa gabagaba ku sii dhow iyadoo kaliya ay ka harsan tahay muddo isbuuca kooda bisha September ayuu soo xirmayaa suuqa iibsiga. kooxaha badan ayaa daneynaya in ciyaartooy la soo siixdaan waxa kamid ah kooxda Chelsea sidoo kale Man United, Arsenal iyo sidoo kale Tottenham. Chelsea ayaa dalab ka gudbisay ninka la yiraahdo Wesley Fofana balse dalabkii 70 milyan ah waa laga soo diiday ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in Chelsea lacag inta ka badan aysan bixi doonin balse kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa doonaysa lacag inta ka badan in ay ku iibiso ciyaaryahankani ayaa buuq ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Leicester City isagoo diiday inuu tababarka soo xaadiro balse kooxda ayaa ku xukuntay inuu la tababarto ciyaartooyda da'dooda ay ka yartahay 23 jirka. sidoo kale Man United ayaa daneynaysa inay ciyaaryahanka Anthony ay keento kooxda kubadda cagta Man United inay keento garoonka Old Trafford. ciyaaryahankan Anthony oo ciyaar kooxda Ajax ayaa isagana daneynaya inuu ku soo wareego kooxda kubadda cagta Man United soo heshiis shakhsi ah la gaaray balse kooxda Ajax ayaa doonaysa in lacag far badan laga siiyo ciyaaryahankan. sidoo kale Man United ayaa sidoo waxay ka shaqeynaysaa ciyaaryahan kale oo ciyaara kooxda Feyenoord oo la yiraahdo Gabko inay la soo siixato haddii ciyaaryahankani uu seego. Chelsea ayaa daneynaysa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Everton iyo Gordon halka Frank Lampard oo kooxda Everton tababaro oo ahna uu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay iska iibiyaan ciyaaryahankaasi balse Chelsea ayaa isku dayaysa maalmaha soo socda inuu dhaqaaqdo saxiix ciyaaryahankan. Man United ayaa already la soo wareegtay Casemiro balse Casemiro wax badan ma ka bedeli doona kooxda kubadda cagta Man United. Chelsea ayaa daneynaysa sidoo kale ciyaaryahanka loo magacaabo Pierre-Emerick Aubameyang inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxa haysta weeraryahan la'aan iyadoo la arkay koonkii ugu dambeeyay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Leeds United in laga badiyay 3-1 saasoo tahay Sterling ayaa ciyaaray waxa loo yaqaano false 9 ama lambarka 9aad ee beenta ah. Chelsea ayaa waxa la sheegay in ay wada hadallo la furtay kooxda kubadda cagta Barcelona ku aadan ciyaaryahankan Aubameyang. Arsenal ayaa daneynaysa in la soo siixato ciyaaryahanka lagu magacaabo Pedro Neto. Arsenal ayaa qarash garaysay lacag ka badan 100 milyan balse weli waxay doonayaan inay ciyaartooy la soo siixdaan sida ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Leicester City Tielemans iyo ciyaaryahanka kaga ciyaara weerarka labada dhinac ama bidix ama midig ka ciyaari kara ee la yiraahdo Pedro Neto ee u ciyaara kooxda Wolves. wararka weyn ee suuqa iibsiga waqti xaadirkan maanta oo Arbaca ah waa naga intaa fadlan like saar videoga sidoo kale subscribe saar channelka hadda ku tixnayn waana ku maasantahay daawashada muuqaalka aad daawatay.